عبد القادر كورما أياد كبرتي إذا ماذا اللي يبالس وحان كبيري لبدا كون إيا سقالكي بشي سجدات حاجات كنت برت وحان كنت برتي حيرada jigjiga ku taalnaa ee ilaa garbaasay هو markii hore degmadeed ka timido xagee laga soo qoray ciidanka Liibolis waxa laga soo qoray degmada iimay bari gobolka Bari muxuu ahaa markii aad shacabka ahayd ee wali ciidanka aada gelin maxaa lagu sheegay oo lagu yiri macnaha sidaad noqonaysaan baa la yiri mustaqbalkiina maxaa la idin sheegay oo ma ciidan macnaha la dagaalamo jabhadaad noqonaysaan mise ciidan boolis oo macnaha dadka shacabka ah oo u dhaxeeyo dadkooda ku dhex jiraan noqonaysaan baa la idin maya waxa nagu qaaday markii hore oo macnaha shaqada lagu galiyay inaan ciidan deegaan noqon hayno lagu soo celin hayo degmada aanu ka dhalanay ka bacdina tababarka markaan ka baxnay waxa la noo diray hawlgal aan ka filanay markaa oo la noo sheegay markii hore ma noo sheegi kartaa mas'uuliyiintii markaa maalintii tababarka dhameyseen idin la kulmay mas'uuliyiinta ha waan sheegi karaa waxa kamid ahaa ninka la yiraahdo Abdi Ilay iyo nin la yiraahdo Daawud oo markaa nimanka meesha qablaha ka ahaa iyo mas'uuliin kale oo badan oo macnaha Tigray ah waxa la sheegaa xilliga mas'uuliyiinta aad la kulanteen macnaha wixii aad filayseen iyo hawshii inaad qabateen aad rabteen iyo hawsha la idin sheegay inay kala duwanaayeen marka mas'uuliyiintu hawshii ay idin sheegeen wax ma nooga sheegi kartaa waxaan idiga sheegi karaa macnaha mas'uuliyiintu waxayna dhaheen macnaha waa inaad macnaha dadkiina laysaan oo macnaha aad kufsataan oo nimankaas waa niman macnaha nabadiido inaga hor yimid macnaha laysaan sheeka noocaas ah macnaha yaa lagu howlgeliyay dadka marka shacabka ee taageersan miyaa la leeyahay dadka laaya leedin leeyahay kuwa miyaa dadka weeyaan dadka laaya leeyahay dadka macnaha shacabka ee qadida taageersan marka xageed adigu ugu horeyntii aad howlgalka ka bilowday ciidankii aad la socotay horta macnaha qaybta aad ka tirsanayd iyo ma noo sheegi kartaa waxaan ka tirsanaa anigu shaharaqaha 8aad xageed ugu horeyntii howlgalka aad ka bilowday oo halkeed ka howlgasheen waxaan ka howlgalay magaalada Jigjiga magaalada Jigjiga marka waxyaabaha ka qaban jirteen maxaa kamid ah waxaa kamid ahaa waxa weeyaan guryaha macnaha ayaanu habeenkii baan macnaha baari jiray marka dadka ma taqaanaayay macnaha magaalada degan iyo macnaha dadka muwaadinka macnaha ayaanu dhibi jiray marka Cabdi Qaadir macnaha waxaad ii sheegtay in shaqadii aad filayseen markii macnaha inaad qabataan kolkii hore aad filayseen markaad mid ka duwan aragteen inaad adigu macnaha muddo kadib aad sidaa uga soo goosatay ma jirtaa macnaha dhacdo aad noo sheegi karto ciidankii kula socday ee Liibooliska aad ka tirsanayd ay dhibaato ay macnaha shacabka u geysteen waxa kamid ahaa macnaha oo aan mid qana ku tusaale qaatoon kaga baxay sida meesha la yiraahdo malqaqa oo dagaal adag macnaha jabhada wadaniga xoreynta ogaadeen ku dhaxmaray mid qana ciidamada gumaysiga Itoobiya oo laga faa'iideystay dhibaatada macnaha igu dibadnayd waxay ahayd kabtaas oo macnaha ciidamada aan ka tirsanaa Itoobiya in Liibooliska la yiraahdo iyo ururka on alif ay isku laayeen kabtaas ka bacdi ayadoo macnaha markaa la meesha halkay ahayd waxa la yiraahdaa malqaqa la yiraahdaa meeshaas oo ciidamada laga guuleystay oo ka bacdina howlgal intii la qaaday macnaha dadka shacabka ay goobta deganaa si xun oo ballaaran macnaha mataqaana gacan qaad lagu geystay taa darteed baan ka adkeysan weyn uga tagay imisa qof halka lagu dilay adiga ogaantaa dadkaas 200 oo qof way ka badnaan macnaha goobta lagu dilay shacabka marka ma magaalada dadkii deganaayeen mise dhulka baadiyaha ay ciidanku goortii dambe ee macnaha dagaalku dhacay kadib ay ku siyaxeen ciidamadii gurmadka maya dadka macnaha kabaabiga deganaa ee baadiyaha iyo wixii tuulo deganaa wax alla wixii la arkay waa la leeynay adigu intii aad joogtay ma Jigjiga iyo malqaqoon baad ka howlgashay mise meel kale oo ka howlgashay baa jira maya waxa kale oo jirta waxaan ka soo howlgalay baashi la yiraahdo dhagax buur ma magaalada mise tuulooyinka ku xeeran maya kulley magaalada yaanu tagnay iyo ilaa burqod meel la yiraahdo way jiraan gabdhaha har iyo habeen qasaba macnaha yaa lagu aftuurtaa macnaha gabdhaha marka hore ayaga oo dibadda laga soo kaxeeyo oo la yiraahdo macnaha waxa tihiin taageere marka dambana macnaha qasab lagu guursada ayaa jira marka ma dhulka baadiyaha ay aadaan mise magaalooyinka ay degan yihiin laftooda gabdhaha way ku farxumayaan gabdhaha reer ogaadeen meel lagu ma bixiyo magaalada miyitaan mas'uuliyiintiinu maalintii hore waxa sheegtay inay ninka Daawud Axmar la yiraahdo markii tababarku idin xinay iyo Abdi Ilay ay idin sheegeen macnaha inaad ciidanka ay fareen in macnaha taageerayaasha dadka shacabka ah loo aaneynay inay oo laf taageersan yihiin in la gumaado oo macnaha la laayo dibdaba mas'uuliyiinta ma u kulanteen
hawaano kulannay waa la noo khudbayn jiray marka howlgalka macnaha aan soo dhamayno lacag baa macnaha la qaybiyaa shilimaad la yiraahdo macnaha ciidamada dib loogu howlgaliyo markasta waxa weeyaan waxa la isku dayaa in si hor leh loo howlgaliyo oo dadka u soo dhibaan